dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu deeqday dawooyinka loogu talagalay in kaliyaha loogu safeeyo dadka kaliya xanuunka qaba. dawadani diyaaliiska ee kaliyaha loogu safeeyo dadka kaliya xanuunka qaba ayaa waxaa dowladda Jabuuti ka gudoomay safiirka Soomaaliland u fadhiya waddanka Jabuuti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed, waxaana guddoonsiiyey agaasimaha guud ee dhakhtarka weyn ee caasimadda Jabuuti. دواوين أو دياليزا وكوكوبين دياليزا artificial iyo kala isticmaalayo waxaan ka sameeyay toddoba qalad كل واجبات waxaan gudinayno intaan kala in ka badan ugu leeyihiin kali wax kale ma soo wadna waxaan gudbinay safiirkii Soomaaliland ka jooga intii Dr. Axmed aad baan kugu mahadcelinayaa runtii marka hore waxaan mahadla Ilaahay marka labaad waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo xukuumaddiisa runtii mar walba nala garab taagan macaawinada haday noqoto mar haday abaara dhacaan imika gabaabsi buu ahaa arrimaha dialysis oo kale dawooyinka oo kale Soomaaliland dhakhtarka weyn marka runtii aad baan dhakhtarka ugu mahadcelinayaa Dr. Axmed Xuseen wasiirka wasaaradda ugu horeeyo xukuumadda inteeda kale oo dhan waxaan isna mahadcelinayaa wasiirka dakhliga Muumin Sheekh runtii aad iyo aad walaalahan mar walba noo garab taagan runtii waana runtii abaal aan idin hayno waxaan la mahadsanidin waan ognahay runtii insha Allah dad walaalo oo jaara oo xagga degan oo xaggan degan labada shacabka Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Jabuuti anoo ka wakiila xukuumaddeeda shacabka Soomaaliland inta waxaan leenahay thank you. dawadani diyaaliiska ee kaliyaha lagu safeeyo ayaa ka kooban laba qaybood, qaybaha filtarada iyo qaybaha biyaha milixda leh ee loogu talagalay in kaliyaha loogu safeeyo dadka kaliya xanuunka qaba. sidoo kale safiirka Soomaaliland u jooga waddanka Jabuuti ayaa isaguna dawadaasi kadib ku wareejiyey badhasaabka gobolka Selel isagoo kagala wareegay magaalo xuduudeeda Looyacado ee Soomaaliland iyo Jabuuti. Bismillahir Rahmanir Rahiim. maanta runtii waxaan joognaa Looyacado xuduudka Soomaaliland iyo Jabuuti u dhaxaysa xagga gaar ahaan waliba Soomaaliland waxaan halkan maanta ku wareejinayaa gudoomiyaha gobolka Selel gudoomiye Mawlid waxaan hay'ad dawooyin runtii macaawina aan ka helnay Jamhuuriyadda Jabuuti wasaaradda caafimaadka gaar ahaan codsigaas oo gudbinay dawooyinkaas oo ku saabsan waxaan hay'ad kuwii kaliyaha lagu safeeyay runtii baahi badan imka aad loogu baahay xageennii marka gudoomiye waxay ka kooban yihiin dialysis acid ayaa 200 xabadood oo unit syringe ama la isticmaalo dialysis ama safeynta kaliyaha 700 oo unit iyo dialysis maxaa hay'ad 1300 iyagana unit oo ah acid lagu isticmaalo marka kaliyaha la safeynayo marka intaas ka kooban yihiin waxaan runtii mahadcelinaynaa Jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele wasiirka caafimaadka wasiirka dakhliga runtii oo aad iyo aad hawsha runtii wax weyn runtii la qabtay gudoomiye waan kugu soo wareejinayaa qalabka inta la eg marka runtii qalabkana halkan ku jira marka gudoomiye waan kugu soo wareejinayaa waxaan la joogaa magaalada xuduudka Jamhuuriyadda Soomaaliland Ambassadorki Jamhuuriyadda Soomaaliland fadhiya dalka Jabuuti Ambassadorku wuxuu nagu wareejiyay dawo uu ka soo qaaday oo isagu ka soo qaaday dawladda Jabuuti una soo qaaday dalkiisa Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii Ambassador waan ka gudoonay dawadaas waxay ka kooban tahay 200 meel 700 meel iyo 1300 unit oo meel dhammaantood dawooyinkaasi waxaa la geenayaa wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah isla maanta aan bixi doontaa safir sida noo soo gaarsiisay yaad qarankaaga ugu soo shaqeysana waanu gaarsiinaynaa runtii safiirkan waxaan uga mahadcelinayaa dadaalka ugu jira qarankiisa. Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Soomaaliland Jabuuti.